maanta waxaan ku bilaabaynaa taxanaha caanka ah ee Kurulis Cusmaan sheekada geesigii dhalinyarada ahaa ee markii dambe noqday aas-aasihii dawladdii Cusmaaniyiinta qaybta koowaad waxay ina gelinaysaa xilli ay dunidu ku jirtay qalalaase iyo dagaalo joogto ah qabiilo badan ayaa ku loolamayay awoodda boqortooyooyin waaweyn ayaa doonayay inay ballaadhiyaan dhulkooda dadka ku noolaa xuduudaha ayaa maalin kasta waxay wajahayeen khataro cusub xaaladahaas adag dhexdeeda ayaa uu ka soo muuqan doonaa Cusmaan ma ahayn nin caadi ah waxa uu jeclaa inuu difaaco dadkiisa kana hortago dulmiga iyo cadowga ku soo duulaya dhulkooda laakiin jidka uu marayo ma ahayn mid sahlan cadow badan ayaa ku haraareysnaa qaar waxay ahaayeen cadow muuqda qaar kalena waxay ahaayeen kuwo qarsoon oo iska dhigaya saaxiibadii markay sheekadu sii socoto waxay muuqanaysa xuduudaha Turkigu inay wajahayaan weerarro iyo shirqoolle istaba jooga Bizden elimizdekiler ister. Senin asimnalların, nice küffarın toprağı... Cusmaan wuxuu isku dayayaa inuu fahmo waxa ka socda hareerihiisa wuxuu arkayaa in dagaalka dhabta ah aanu mar walba ka dhicin goobta dagaalka oo keliya marka qaarkood dagaalka ugu khatarta badan wuxuu ka dhacaa gudaha dadka dhexdooda waxaa jira dad dana gaara leh waxaa jira dad doonaya awood waxaa jira dad diyaar u ah inay khiyaano sameeyaan si ay u gaadhaan ujeedooyinkooda Cusmaan waxa uu si tartiib ah u ogaanayaa in mas'uuliyadda saaran ay ka weyn tahay sidii uu markii hore u maleynayay dad badan ayaa indhahooda ku haya qaar kale waxay rajeynayaan inuu guuleysto qaar kalena waxay rajeynayaan inuu fashilmo si kastaba ha ahaato Cusmaan ma muujinayo cabsi iyo jiljileec markasta oo caqabad timaado wuxuu sii muujinayaa geesinimo iyo kalsooni taasi waxay ka dhigaysaa inuu ka duwanaado dadka kale qaybtan koowaad waxay si qurux badan u dhisaysaa bilowga safarka Cusmaan waxayna tusaysaa nin dhalinyaro ah oo weli baranaya hogaaminta laakiin leh qalbi weyn iyo himilo fog waxay sidoo kale tusaysaa in maalmaha soo socda ay jiri doonaan dagaalo waaweyn go'aano adag iyo dhacdooyin bedeli doona taariikhda laakiin su'aasha ugu weyn ayaa ah ma awoodi doonaa Cusmaan inuu ka gudbo shirqoolada loo maleegay yaa dhab ahaan saaxiib la ah yaa sacadow la ah su'aalahan jawaabahooga waxaan ku ogaan doonaa qaybaha soo socda si aad ula socoto fadlan channelka subscribe saar like na saar siina share gare mahadsanid